سعيد عبد الله دني iyo Axmed Maxamed Islaan Madoobe ayaa wali ku shirsan magaalada Garowe. Labada nin oo bahwadaag siyaasadeed ahaa labadii sano u dambeysay ayaa inta badan kulankooda ku qotama doorashada golaha shacabka iyo cidda qaadanaysa xukunka filla Soomaaliya, balse warar dheeri ah ayaa laga helayaa kulankooda. Siyaasiyiin ku sugan magaalada Garowe oo si dhow la socda kulanka labada nin ayaa soo dusiyay qodob weyn oo dhex yaala shirka labada nin. waxaa la sheegay in qodobada dhanka Axmed Madoobe inay kamid ahayd fariin ay u soo dhiibtay dawladda Kenya oo ah inuu Siciid Dani ku qanciyo inuusan sanadkan u tartamin xilka madaxtinimada Soomaaliya, taas oo haddii ay dhacdo ay Kenya u aragto inay fursad siinayso farmaajo. Kenya waxay ku jirtaa dhowr dal oo si weyn u raadinaya inuu farmaajo baxo, balse walaacooda ugu weyn waa inay maamuladii mucaaradka ahaa iyo midowgii musharaxiintu kala tageen. sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedkan, Kenya waxay rabtay in Jubaland, Puntland iyo midowga musharaxiinta oo midaysan inay hal qof xoogooda isugu geeyaan oo iyaguna ay qofkaasi dhisaan kana iibiyaan dawladaha kale, balse hadda is-sharaxidda Siciid Dani ayaa niyajab weyn ku ah dhammaan dalalkii rabay in farmaajo la bixiyo. waxaa jirta aragti caam ah oo taalla gudaha Soomaaliya iyo dhammaan dalalka daneynaya doorashada, waana in haddii uu Siciid Dani tartamo inuu farmaajo haysto fursad xoog leh oo uu mar kale ku qaadan karo filla Soomaaliya. waxaa la aaminsan yahay musharaxnimada Siciid Dani inay si weyn u kala qaybin doonto codadkii mucaaradku heli lahaayeen, taasoo sababi karta inuu farmaajo guulaysto mar kale. sida ay sheegeen ilaha aan la hadalnay, Axmed Madoobe waxaa loo diray inuu Siciid Dani ku qanciyo inuu fursaddiisa ku aadiyo doorashada xigta ee Soomaaliya ee 2025, inta ka horeysana inuu ka shaqeeyo isbeddelka filla Soomaaliya iyo inuu Puntland u reebo taariikh wax u goyn karta 2025. laakiin dadka yaqaana Siciid Dani waxay sheegayaan inay adag tahay in laga fujiyo meesha uu ku dhago. mid ka mid ah xubnaha Axmed Madoobe ku dhowdhow waxaan ka soo xignay in mar walba Axmed Madoobe ku qasban yahay inuu Siciid Dani garab istaago xitaa haddii uu Siciid diido fariinta loo soo dhiibay Axmed. madaxweyne farmaajo in la saaro waxa u hanqaltaagaya dawlado badan, waxaase dhici karta ayaa la leeyahay in colaadinta dalalka darisku inay isaga wax u tarto maalinta doorashada. Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu ku jiraa dhowr qof oo su'aal la gelinayo inay farmaajo kursiga ka qaadan karaan haddii ay wareegga ugu dambeeya ee doorashada isla yimaadaan. dhinaca kooxda madaxweyne farmaajo akhbaar weyn ayay u tahay inay mucaaradkii sii kala tegayaan oo aanay maanta isku aragti ka ahayn sida loo bixinayo farmaajo. kaalmada dhaqaale ee doorashada ee dhinaca mucaaradku weli waa xayiran tahay. sababaha ay u xayiran tahay waxaa ka mid ah isgarabyaacooda iyo hubanti la'aanta jadwalka doorashada. haddii uu Siciid Dani diido soo jeedinta dalalka masuugsan musharaxnimadiisa, lama yaqaano sida ay dalalkaasi u wajihi doonaan mashruucooda xiga ee doorashada Soomaaliya. kulanka Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay ka soo baxaan qodobo dib u sii dhigi kara doorashada golaha shacabka, sida inay soo jeediyaan in lagu laabto heshiiskii doorasho ee 17 Sebteembar, gaar ahaan qodobada deegaan doorashada iyo tirada ergada. sidoo kale maamuladu waxay badi ka siman yihiin saluugga dhaqaale la'aanta doorashada. maxay kula taadeen